maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona Bismillah, this is what chapter 5 way. Chapter way noo socdeen. Chapter 5 marka waxaan qaadan doonaa asagana qaabka uu chapterkan u eegay. Chapter 5 marka waa qayb kamid ah Animal Kingdom-ka. Animal Kingdom-ka waa tii loo soo qaybiyay invertebrates, haddii kale invertebrates iyo chordates. Ay qaybta vertebrates, we can say chordates because of what ay vertebrates waxay qaybkan chordates. marka buugaagtii hore waxyaabaha la sameeyay qaabka loo u qornaan jiray mise jabtarada magaca ay qaadan jireen wuxuu ahaa jabtar invertebrates looga hadlayo jabtar vertebrates haddii kale buugaagtii hore hal mar labada maxay ahayd looga hadlayo hal jabtar ay buuga qaabka markaas uu ku socdana waa xusuustaan waxay ahayd qaab oo linear jabtar walba mise qayb walba hal meel lagu hal mar looga baxay buugta marka mise curriculum-kan cusub qaabka uu ku soo qaab spiral ay spiral marka aan jabtaradiina mas classification marka laga hadlayo tusaalaha monera iyo protist iyo fungi iyo waxa dhan ilaa ay buugi waxay ku soo bilowdeen form 1 classification ka soo bilowday ilaa ay form 3 u socdaan Animal Kingdom naftiisa marka laba jabtar loo kala bixiyay qayb invertebrates ah oo jabtar 4 ka looga soo hadlay iyo qayb chordates oo jabtarkan looga hadlay chordates marka waa kuwan notochord kale waa kuwa marka embryo notochord kale saan lagu yaqaan jira kale this waa introduction to chapterka marka wuxuu ka hadlayaa qaybta labaad oo Animal Kingdom qaybtii hore waxa laga soo hadlay chapter 4 this waa qaybta labaad oo Animal Kingdom kamid ah qaybtaas loo yaqaan chordateska chordates marka waxa soo galaya vertebrates ka soo galaya vertebrates ka soo galaya kuwaas oo iyaga naftooda si kala baxbaxayo oo marka astaamaha ku kala duwan oo class u si kala bixi doon chapterka marka wuxuu ka hadlaa marka ay jabtarka ardayda marka waxay ku baran doonaan astaamaha lagu yaqaana iyo classification-ka chordates marka waxa astaamaha lagu yaqaana ay classification-ka marka lagu sameeyo maxay u kala meeqa qayb u si kala bixi karaan ayaa looga hadli doonaa this is the introduction of the chapter walba introduction-kan ay buugga oo dhan buugta oo dhan marka afirisaan chapter walba introduction-kan uu ku bilaabana marka introduction-ka marka waa ardayga waxa uu ku si fahmi lahaa chapter-ka waxa lagu qaadan doonaa jabtarka marka chordates ayuu ka hadlaa oo ay qayb ka yihiin vertebrates ay vertebrates marka jabtarka intiisa ugu badan lagu faahfaahin doona waaya intaas marka aan ka soo baxno waxa noogu xiga markaan objectives ay jabtar walba dabcan wuxuu leeyahay objectives oo ardayga laga rabo inuu gaaro ay these are the objectives of this jabtarka markuu dhamaado ardayda marka waxa laga rabaa inay identification ku sameeyaan ay progress of chordates waxa lagu yaqaanaa inay ardaydu sheegi karaan tusaalooyin ay ka bixin karaan chordates tusaale hebel nooleyaashaas kamid ay dhihi karaan inay list ku sameyn karaan different class of vertebrates class-yada kala duwan u kala bixi karaan inay list ku sameyn karaan oo ay list gareemkaas ay tixi karaan ay class-yada kadibna comparison ay ku sameyn karaan astaamaha ay waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin this is objective in la gaaro rabo in explanation ay ku sameyn karaan the students should be able to explain how vertebrate bodies and structures have adapted to live in their environment sidee marka siyaabaha kala duwan this is view measures inay sharxi karaan ardaydii sida nooleyaasha vertebrateska jirkoodii structure-ka uu leeyahay kaas oo u suuragelinaya in deegaano kala duwan ay ku noolaadaan tusaalahan qaar kamid ah waa amphibians oo frog oo kala qaab u nool yahay jiro ay snakes qaab u nool yihiin shimbiraha qaab marka jirkooda marka laga hadlayo sida uu sameeysan yahay ay ku kala duwan yihiin siyaabaha markay u kala nool yihiin deegaanada kala duwan ay ku noolaan karaan ay sidoo kale marka waxa laga rabaa ardayga inuu muujin kara muhiimadda dhaqaale ay leeyihiin vertebrates qaar kamid ah waa waxay ahayd cunta laga dhigtaa vertebrates qaar kamid ah waxyaabo kala jirkooda laga helaa jiro oo waxay ahayd qiimo leh soo marka this is marka waa inuu ardayga muujin karaa importance-ga mas'ala significance-ga oo dhaqaale muhiimadda dhaqaale oo group walba uu leeyahay taas marka waa objective-yadii marka ardayga laga rabo inuu gaaro macallin marka waxa isku daydaa in objectives kan meesha ku yaala
in ardayga uu xaqiijiyo objectiveskan chapterka markuu dhamaado kulli inuu xaqiijiyo la rabaa ardayga uu gaaro aye section ku u gaara jira mid walba kuwan kamid sectionada buuga kamid ay marka ay maxay ahayd gaaritaankooda ku xuseen sidii lagu gaari lahaa ku jira marka macallin marka ardayda ka xaqiijiyo inay waxaan gaaray mase ardayga uu fahmay waxaan mase uu saas u qaatay mase saas u gaaro waxaan laga rabo maxay ahayd gaaray ay inaan qabisa macallin laga rabaa ay chapterka marka contents waxyaabaha uu ka kooban yahay kuwan marka chapterka wuxuu ka kooban yahay ilaa wuxuu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay 6 sections uu ka kooban yahay ay dabcan meeshan waa 5 afwan meeshan 5 waaya chapter 7 waa chapter 5 all these waa 5 ay sections kiiba ay marka waa kan sections kiiba أقوى مرك section كوجو هري 5.1 وحلقة هذا هو coordinates كم حلقة يقان أستعمى section كلا بعض وحلقة هذا هو coordinates كclassification كسيد لو classify قري كدي من section كسيد حد وحب الله بنا مرك coordinates كي سيب vertebrates كي نوعية دودي fishes كوجو هري amphibian يساكو حاجة reptile يساكو حاجة هاي section ماشان كم بغنا جرو mammals. These are the sections. Ay section marka waa kamid mid marka aan loo gali doona marka buuga kulli la fiiriyo section walba buuga ay meel marka uu si gaar loogu sharxa marka. These are the sections of the chapter. Ay intaas markaan ka soo baxno waxaan ugu xigay marka chapterka qaabka ku baxay. Chapterka wuxuu ku baxaa mas'alo methodology loo maray oo intaan nooc qayb ka mid ah discussion ayaa marka ka jiro ardayda discussion ayaa dhexdooda laga abuuraa si ay marka chapterka qaybta sectionkaas mise qaybtaas waxa concept ku jira la soo baxan ayaa qayb ka mid waxa loo baahay demonstrations ayaa waxyaabo la muujiyo sida sameeyay charts oo kale sawir oo saraajaradii vertebrates ka hadla la muujiyo ayaa experiment yaa jiro oo chapterka qayb ka mid marka soo galaayo la sameeyay ardayda sameeyay la rabo flash card isa jira oo kaarar ay ku qoreen magacyadii noolihii sawirkiisa iyo magaciisa marka ardayga uu xusuusto ayaa magacyada noolayaashaas field trips jira oo lagu tago marka lagu soo loo sameeyay si ardaydii u soo aragto noolayaashii vertebrates kala duwan ama coordinates kala duwan meelaha ku kala nool yihiin intaan marka method ayaa chapterka marka loo baahan yahay in loo maro si marka la rabo si loo gaaro objectives-ka chapterkan lagu soo sheegay intaas markaan ka soo baxna ayaa chapterka marka activities chapterkan dhowr activity ayaa ku jirta ilaa iyo waxa ku jira 13 activity ayaa ku jira ayaa qaar kamid activities ayaa marka meeshan slide soo socda lagu sheegi doona marka dabcan activity-da qaabka ku socdana form 3 ayaan kulli seminaarkeen hadda u sii mara ayaa form 1 iyo form 2 ay laga soo baxay form 3 siba chapterkii shanaad aan marayna marka activities qaabka ku socdan already marka waxaan u maleynaa waa isla qaadanay marka macallimiin marka sidaas activity-da aan ku wadno in ardaydii marka sidaas si ka fiican oo ardayga uu ku gaari karo activity-gaas inuu sameeyo mas waxaas laga rabo activity inuu gaaro in marka macallin aad ku adkaysaa marka lagula talina this is marka waa activity kamid activity-ga marka activity 7 ee buugga activities midka toddobaad waa activity-ga noocan dhowr mar oo soo maray activity-ga waxaa kaga muuqda sawir oo su'aalo la iska weydiinayo sawirka marka ardayga marka waxa la rabaa inuu si fiican u fiiriyo kadibna su'aalaha sawirkan la socdo uu ka jawaabo sawirka marka waxa ka muuqda frog ayaa heartigiisa mase circulation-kiisi ayaa ka muuqda circulation-kii heartiga ka socday frog ayaa ka muuqda dabcan froggan wuxuu ka mid yahay amphibians-ki ayaa this is marka waa the heart of amphibians ayuu marka uu representative u yahay mas oo tusaale u yahay this marka aimka ujeedada horta waa maxay identifying the structure of the heart of amphibians in identification lagu sameeyo qaab dhismeedka wadnaha amphibiyaha figureka below marka wuxuu ka dhigan yahay the circulatory system of amphibians adoo sawirkaas isticmaalaya ka jawaab su'aalaha soo socda marka sidii sawirro noocan oo kale hore loogu soo arkay inta aadan sawirkan jawaabihiisa ardaydii marka hore aadan weydiin ka hor waxaa muhiim ah sawirkan waxa ka muuqda horta marka hore ardayda ay fahmaan mase sawirkan waxa ka muuqda ay si fiican u fiiriyaan sawirkan waa ujeedaan
ayaa waxaa ka muuqda this is the frog waa the circulators of the frog ayaa waxaa magnification lagu sameeyay si gaar ah loo soo qaado meeshan lagu weyneeyo wadnihiisa wadnihii marka meeshan laga fiiriyo marka ardayga inta aadan su'aalaha weydiin ka hor wadnaha waxaa dhahdaa ardaygu meeshan waxa kaga muuqda ay wadnaha dabcan jambaradiisina uu soo maqlay mise soo arkay aye kadib marka the jumpers of the heart of the amphibian meeshan in wax laga weydiiyo aye this is jambaradii waa tan waa this is the left atrium waxaan rabaa right atrium and that's the left atrium ventricle kan la fiiriyo wuxuu leeyahay this is the single ventricle hal ventricle leh kadib markan meeshan waxa ku qoran uu safiican u akhriyo meesha marka waxa ku qoran sawirkaas waxa lagu sharxay this is waxa ku qoran oxygen poor blood from the body enters the right atrium dhiigii ka imaanaya jirka oxygen-ta ku yareed ayaa right atrium ka soo galay number 2 waa ka pulmonary veins marka sawirkan waxa ka muuqda iyo waxa ku qoran inuu ardayga marka hore si fiican u fiiriyo isagoo marka sawirkan wax badan ka arkay su'aalihii la weydiiyay kadib su'aalaha marka si fudud marka jawaabtii uu helo su'aalaha marka waxa kamid ah su'aasha koowaad waa how many jumpers does the heart of the amphibian consist of amphibian iska marka hadii kala frogan meesha ka muuqdo tusaale hadda u soo qaadanay wadnihiisa meeqa jumper ka koobayo su'aal waa su'aasha marka ardaygu wuxuu ka jawaabi karaa markuu sawirkan si fiican u fiiriyo su'aasha ku xigta meeqa nooc oo circulation ayaa ka muuqda marka dhiig wareega oo amphibiyaha sawirka meesha ka muuqda blood circulation marka laga hadlayo meeqa nooc oo dhiig marka circulation uu sameeyo meeqa qaab marka circulation kaas uu maro mesela lubiska uu maro noocyada su'aal laga weydiiyay sidoo kale circulatory system amphibiyaha muxuu kaga duwan yahay midka fiishka sawirka marka ku soo laab sawirka si fiican u fiir marka su'aasha koowaad ahayd meeqa jambar ka koobay ma ka muuqata sawirka way ka muuqata waa kan jambaradii labadeeda two atrium waa ka the two atria iyo meeqa ventricle waa single ventricle soo marka sawirkan maxaa leedahay wadnihii amphibiyaha waa ardayga muxuu leeyahay rabaa adoo macalinka ma ardayga muxuu leeyahay ardayga wuxuu leeyahay macallin meesha waxa iga muuqata inuu sawirkan mase wadnahan oo frogaas uu ka kooban yahay 3 jumpers soo marka maxaa sameynaysaa dhowti marka generalization samee marka waxa dhahdaa all amphibians have a heart that consists of 3 jumpers bas jawaabta saga bixi jawaabta la su'aasha labaad jawaabteeda meeqa nooc circulation meeshan ka muuqda meeshan si toos ah sawirka ugu muuqda laakiin waxa isku daydaa ardayga inuu jawaabtaas helo maxaa sameynaysaa macallin waxa sameynaysaa sawirkaas marka ardayda tuseen sawirkan kala safan u fiirin sawirkan waxa kaaga muuqda mase ka muuqda wadnihii iyo blood vessels meeshan waxa ka muuqda laba nooc oo blood vessels ah oo dhiiga ku jira uu kala duwan yahay good sawirkii waa ka marka safan u muuqda markan dhiiga meesha ku jira good meesha waxa ka muuqda marka in dhiiga ku jira xididada uu kala duwan yahay midka marka buluuga lagu muujiyay midka radka lagu muujiyay maxay kala yihiin midka buluuga lagu muujiyay meeshan ku qoray waa dhiig oo oxygen-ta buurku ah oxygen-ta ay ku yartahay midka radka lagu muujiyay midka oxygen-ta wata mise oxygenated ka horeyna galaaskii 2 alif ardaydu waxay ku soo qaateen in blood circulation marka laga hadlayo laba qayb uu yahay mase nooleyaasha amphibians marka bani aadamka soo qaateen ardayda waxay soo arkeen in blood circulation-ka uu kala baxay circulation-ka oo bani aadamku uu ka kooban laba qaybood pulmonary circulation iyo systemic circulation jawaabtaas marka meeshan laga rabaa pulmonary circulation iyo systemic circulation oo arday kala soo bixi kara intuu ka helaa jawaabta dhiigan oxygenated-ka iyo midkan deoxygenated-ka meelahay soo marmara midka oxygenated inuu sanbabihii ka yimid deoxygenated uu ka yimid jirka qaybihiisa kala jawaabta marka laga raba taas waa marka jawaabtii meeshan si toos ugu muuqata laakiin macluumaadkiisii hore iyo adoo macalinka sharxi marka la sharxay su'aashan sawirkan ugu sharxaysa yalla inuu jawaabtii kala soo bax marka laakiin meeshan wax ku qoran hadda oo noocyada dhiiga oo pulmonary circulation waa system ma jiro marka su'aalo nooca marka activity noocaas jira marka macallin waxa dhihi marka meeshan jawaabtii kama muuqato ka socodin adigu macalinka hadii aad dhahdo meeshan jawaabtii kama muuqato ka socod ardaygu ka soconaale marka saas marka adiga isku day marka in jawaabtii ay ardayda saas ku helaan su'aalaha marka waa ka su'aasha ugu dambaysa muxuu kaga duwan yahay amphibians circulation kooda midka fiishka marka hore u soo arkan this is what amphibians chapterka meelo kamid wuxuu ku soo arkan fiishka wuxuu leeyahay marka single circulation kiisu waa hal
haye wuxuu sameeyay fiishka ay mar alla markii dhiigi lagu sameeyay maxay ahayd la soo bangaray gilisku mara jirku sii aada marka soo marka fiishka maxaa leedahay waa single loop waa double loop ma marka kulli macluumaadkaas waxaan rabaa fiishkana hore u soo qaateen intaas isku xidhan marka activity ujeedadiisa intaas ahayd marka good ay jawaabihi marka saas ku hela marka su'aalaha noocan marka buuga iyo buugta hore way ku soo dhowr marka dhowr activity noocan oo su'aalaha noocan laga weydiinayo sawirada way soo laablaabaan marka waa kan macalinka waxa laga rabaa in ardayda ku gaargareeyo inay si fiican u fiiraan sawirka kadibna jawaabihi ay helaan ardayda waxa laga rabaa in jawaabahaas sawirka ay ka helaan qaarna hadii baaritaan u baahan soo baaraan oo macalinka soo baaro u dhaaf ay these are the answers slide-ka marka answeradii su'aalihi hadda nagu jiro ay wadnaha muxuu ka kooban yahay foroga hadda 3 chambers oo 2 atria iyo 1 ventricle ay jawaab fi nooc pulmonary circulation iyo waxa rabaa blood circulation ki VB foroga hadda meesha ka muuqdo ay meeqa circulation u leeyahay pulmonary circulation marka jawaabihi waa kuwa waayahay marka assessment-igi marka waa kaasaas marka inta hadda kulli meesha ugu taalay jabtarka dhamaadkiisa marka qaybta su'aalaha ardayga lagu qiimeynayo objectives-ki jabtarka inuu gaaray waa sidii marka dhowr mar aan sheegnay waxay isugu jiraan laba nooc ayaa kuwa multiple choice ama saf maxay ahayd oo multiple choice qayb su'aalo direct ah marka su'aalaha jawaabahoodii marka ardayga uu sameeyo kulli oo wax marka jabtarka inuu fahmo muujinayo marka macalinku ku adkay marka ardayda in su'aalihii maxay ka soo jawaabaan tusaalahan jabtarkan oo kala duxuu waxa ku jira ilaa iyo dhowr iyo 10 oo multiple choice ah iyo su'aalaha iyagana 10 oo su'aalaha noocan oo direct-ga ah su'aasha ugu horeysa oo kala ardayga jabtarka wuxuu ku soo qaatay waxa lagu yaqaan mammals birds kadib su'aal la weydiinayo waxa la dhahaa marka ayaa noolayaashaas marka aan soo sheegay maxaa lagu yaqaanaa hire scar with language with air sacs heart with 4 chambers intaas markii yaa lagu yaqaan wadna afar jambar ka kooban language with air sacs kadib marka sidaas marka loo sheego noolayaasha mammals iyo birds labadaba waxa lagu yaqaan meeshan sheeg maxay muuji waxaan ka doora kadib ardayga maxaa la rabaa marka uu doorto heart with 4 chambers yaa lagu yaqaan marka birds iyo mammals marka su'aalaha saas u socdaan ay su'aalaha meeshan ku yaala qaar kamid ah kuwa kamid ah waxa for example kamid ah ay diaphragm ka muxuu taraa ay what is the function of a mammalian diaphragm ay diaphragm ka marka mammals muxuu taraa diaphragm shaqadiisana waxa ardayda hore ugu soo arkeen xataa jabtarka respiratory system ka ay in breathing ka qayb qaata waa ka in efficient breathing inta ku taal marka adiga marka su'aalo multiple choice waa kuwaas su'aalaha jabtarka ugu dambeeyna waa su'aalaha iyagana direct ah waxaan rabaa qaybta labaad ee jabtarka su'aalaha qaybta labaad waa su'aalo direct ah waa su'aalihii oo buuga jabtarada hor lagu soo arkay oo kala su'aalo inta sawir la keenay sawirka su'aalo laga weydiinayo ay sawirkan hadda tusaalaha inta waxa ku yaala diagram oo muujinayo ay circulatory system-ka su'aalo laga weydiinayo marka ay su'aalaha waxa kamid ah which body system is illustrating the diagram sawirkan maxaa ka muuqda sawirkan jirka qaybtay ama system-ka ka muuqda waa circulatory system-ka su'aal marka dhowr asaas lagu weydiina marka waxaan oo dhan marka waa ardayga marka wax inuu sameeyo la raba macallin marka waxa laga rabaa in hawshaas aadan fududeysan oo ardayda marka su'aalahan jawaabahooda ay bixiyaan ayaa dhowr mar sida la sheegay jawaabaha su'aalaha in hal mar ardayga loo dhiiba samahu marka qaar culays ku noqon karta su'aalaha xataa qayb section dhowr section laba section hal section adiga wixii section ka la qaato su'aalihiisana ay xogaa samahu ay su'aalo ardayga uu intuu qaato ka soo shaqeyn kara ay noqon karaan su'aalo badan yihiin u dir laakiin inta su'aalihii uu ururiso hal mar ha u dir taas marka waa culays ku imaan kara marka ardayga murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmi